odayaasha dhalinyarada saxaafadda aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan la qabaa farxadda ku jirta abiib diiniye anna way ku jirtaa maanta reer Gabiley waa la kaftamayaayo berigii hore waxaan u malaynayaa intaan halkan ku soo noqon jirnay daaqadaan ka soo geli jirnay Gabiley maanta albaabkii baa furteen qalbigii baa furteen maanta albaabkaa furmay waxaan leeyahay waxaa qayb weyn ka ah inuu furmo musharaxa golaha wakiilada u sharaxan محمد عبد الله إبو وحان يجب قدومي فروحي دهب كهاي يبتين قبل كده وحان قالوا يجب قدومي صدح لمشرح مشرح قلعه وكيلنا يلا ماذا مشرح دقيقة دور الشدة قليلي يقول هدقيقة dareenkiina iyo shucuurtiina aad muujiseen aad bay annagana noo shucuurtayada u kicisay waannu idinka mahadnaqaynaa waxaa inoo ballana inaad musharaxiinta soo saartaan inta kalena waynu isugu imanaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan is leeyahay hadallada iyo ereyada halka ka sheegteen odayaasha musharaxiinta ma qiimayn karo oo erayo kuma qiimayn karo laakiin waxayna tusaysaa arrintaasi in shacbigu u baahan yahay isbeddel insha allah isbeddelka ugu horreeya waxaynu ka filaynaa musharaxiinta saddexdan musharax iyo ragga kale musharaxiinta hadday golaha wakiilada yihiin iyo hadday golaha deegaanka yihiinba doorasho soo socotana insha allahu dee isbeddelka waynu muujin doonaa innagoo gacmaha ishaysan maanta somaliland uma baahna inay kala horqoobnaato inay xuduudda kala yeelato waxay u baahan tahay inaynu mustaqbalkeenna ka wada fikirno oo mustaqbalka carruurteenna ka wada fikirno oo qarannimada iyo midnimada shacbiga ka wada fikirno taasaanay somaliland guul ku gaadhaysa haddii alla ka dhigto somaliland ha noolaato somaliland ha noolaato Gabiley ha noolaato musharaxiintuna ha guulaystaa insha allah